waxaan la qabaa walaalihii iga horreeyay siday u cabireen baahida nabad loo qabo in magaaladani nabad u qabto xusuusinta magaaladani waxay soo martay haddii ninkii caqli lehna waa ogyahay ninkii caqli aan lahayn ama wax kale caqliga ka qaadaanna waa la xusuusinaya waa laga leexleexday si guud ayaan arkayay in loo korkor maray nabadaa la rabaa nabad waa in la helaa nabad waa haysanaa horta alxamdulilah muqdisho waa nabad in sha allah wayna sii ahaan doontaa dhaxalna uma helin colaad joogto ah kuwa nacab ee muqdisho inay holacdo rabana waxaa ka badan kuwa raba muqdisho inay iftiin ahaato soo sidaas ma aha waxaan rabaa kuwa badani siday uga badan yihiin kuwa fidnada wada inay u shaqeeyaan aanay noqonin dhaqanka xumaa ee 20 qof meel ay fadhido qof lagu dilo haddii booliisku weydiiyo qofkii uu ahay cabsi darteer loo yiraahdo ma ogeyn aniga saas inaan dhanaan raba hebel baa raba xamar inuu gubo ee waa inaan iska celinaa in la yiraahdo xamar waxa raba inuu gubto sanadkii ugu dambeeyay nimanka jasiiro fadhiya qayb ka mid ah ma wada dhahayo xoogaal aanu ahay dabcan waa iska siyaasad way isu geysay ragga laakiin waana kala fikir badan yihiin waana kala mas-uulsan yihiin raggaas qaarkood hadday ahaa lahayd wixii tabarulaaka taba xabaday ridi lahaayeen goor hore laakiin waxaa jira rag halkaa fadhiya og wixii la soo maray ay daacad ka tahay inay xukumaan raba laakiin inay wax laabaan aan rabin baa raggaas ku dhex jira ragna waxay rabaan ay kunturaad ku qabaan oo ooman yihiin oo taleefon kasta loo soo diro lagu canaantaa maxay tahay meesha weli nabadahi in magaaladani gubato ilaahay markiis ogo waa magaaladii uu sheeganaya inuu isagu leeyahay waa ka warqabnaa waana ognahay waxaan uga mahad celinaynaa kuwa dareenka dadnimada leh iyo muslimnimada ee Soomaalida ee mucaarad ku eg dabcan mucaarad in wax la mucaaradahay waxay ku qoran tahay dastuurka qof diidi karta mala ra'yigiisa inuu sidoo waar ka sheego waa qodobo dastuuriye qofta si nabada ku sheegaysana waa uga mahad celinaynaa kulligood annaga laftirkeena gudoomiyaal xisbiya وما هذا الدولة كنا هذا من مجاعنا لكن لبا رماد بواكو هذا لنا ومرة مجالات عندنا هاي واحد كستو مجالات عند بكوه دبي نوجي وأنا شيء إن عدر بتاعت مركان الصون نقضى هابين دو يدو حد عي ونمان ضيالا وسياسيين وليفل كيسو ذا جارين قاركو ذا دكتين وجاري علن كجمهورية ذا جاري كيسارين إن لوجو حرو شرف كجاري لكن cid kale hadda wuxuu sheegtay dabcan ay ku soo arooreen haddaanu raahbalnahay waa in dagaal dhaco waa inaan kala guurno waa in jabhadanin waliba reerkiisa xaafaddu xamar ka degan yahay wixii maleeshiya uu heli karo waa inuu ku arooriyo xayndaabkan amniga aad loo ilaalsho iyo waa inaan ka tagna xaafadaha shishe aan tagno ragga sidaas hadda fikirkooda noqday sidii Soomaali looga sugayay isugu yimiday Soomaalida hore geeleyda geel hadii la dhaco wariyaan maali jiray hadda kadib waa ka xunnahay waana fikir ka qasaaray fikir gadmaay xilligiisa la joogana maaha waa la soo tijaabay kaas waa gadanyay waana lagu hoogay qaran baan lahayn dawlaan lahayn sidaanoo kale rag intuu istaaga dan lahay waxay ka dhigeen in dawladdu wax kala tahay dadkuna wax waa la kala qaaday dawladda iyo dadkii waxaad ogeedeen dhacay waxaan rabaa inaan kala qaado ragga habeen hore hadlay waa wada dhageysanaynaa waa fiirsanaynay waana naqaanaa xataa haddana hadlay waxay aaminsan yihiin qaar badan aan ogna qaar baa arrintu waxay la gaartay inay yidhaahdaan berri ka bilaabata xabadaan ridaynaa ficlan xabad waa la riday hadday ayaga ahayd shalay hoobiyaa soo dhacay dad shacab oo ku dhacay hadday ayaga ahayeen ma aqaan habeen hore ayagaa dhaartay dhaartoodii waa ka dhabaayeen shalay waxaan arkay Facebook aadna aan uga naxay runtii
gabar yar oo wax baratay iyo gabar kale iyo caruur hoobiye ku dhacay ma ogi inay ahaaday kuwii dadka awal dili jiray inay ayagii dagaalkoori bilowgoori tahay anuu kalama aqaan laakiin dabcan qofkii goob loo dhan yahay ku hanjaba sida haddii wax la baari tago meeshan yaa joogay xalam maxaa dhacay baa la yidhahdaa yaa waxaa ka dambeeyey marka inay xabad ridaa inaa rag sheegay doorashada ay iska dhaafeen anna ay dagaal dhacayo ciidanna ay caawa kadibna nabad aanay muqdisho ka jirayn way duuban tahay aniga maaha waad wada ogtihin raggu way kala yihiin oo rag waxaan rabaa inaan u dhaafo dagaalkooda iyo baaqooda dagaal raggii deganaa hotel jazeera eryadiisa raggii banaanbixi soo baxay iyagoo xabadayo dhashay keel wata iyo banaanbax isku wada yimid ayagoo sii rooraya la arkay haddana ayagoo sii cararaya la arkay haddana weli dhahaya dagaal aan ridin ayaga waxaan leeyahay oo igaga filan nin baa gabalkiisa waxaa ku jirtay cagaf baqadkaaga iyo caalamka ogaaye casharkii inuu idin hor yaalho cilmi la-aan kuwa habeen hore lahaa waxbaan dilaynaa daraad unbayaad markaad sii ordayseen haddana waa soo ordayseen dagaal kaa dheeraa maayee yacni soonka iska jebinin ragga degay magaalada shishe walaalkii xasan sheekh kamidi oo asagu sida la sheego aad uga hamuun qaba dhiig inuu daato horta xasan oo meeshaa degta jira wax buudhana la yidhaha waxaana degan aan ku xusuusiye kuwii xamaaliga ahaa oo low levelka ku noolaa oo masaakiinta ahaa dekeda ka xamaalo jiray 7,000 oo qof intaad dekedii ka erisay aad turki ka karaysatay shirkado kale horta kuwaad u degtay waa kuwaas garabay dagaal kugu siiyaan iska dhaafay wallaahi ayagaad halis ugu jirta xataa inaad inta abaabusho dagaal gelisay iska dhaafe xasan oo kuwaa u tagtay waa 200,000 qoysood nabad la-aan dhigtay oo nolol la-aan dhigtay kuwa aad leeyahay war askari hebel ku dayo horta qof guulaysta lagu daydaa nin baa habeenkii wuxuu ahaa madax sare waad soo abaabusheen balaayad qortu geliseen inuu asagii dhuuntaad ku qasabteen markaas haddana ha lagu dayda yaa ku dayanaya ma nin fashilmaa cidi ku dayataa kan kaloo leedahay hebel maaragta hayaan lagugu bedelin horta askartu aan idin xusuusiya xasanow waa kuwa aad dhihi jirtay ninkan $100 rabin iriddaha ka baxo wallaahi bilaahi qof askariya oo adiga ku dhegaysan doona amba ku dhegaysanaya inuusan jirin qof qabiilana iskaba dhaaf waxaadan ogeyn qabiilba in laga gudbay kuwa dadka laaya shabaabka waxyaabaha ay ku guulaystaan dadka ku dilaan waxaa ka mid ah inay qabiil ka gudbayn mabaadi isku raaceen adiga qudhaadu mabaadidaad ahayd oo gruubaad ahayd adigii gruubkaagii dagaal maraad gasheen shimbiro maray dab qaadaa la yidhi aqalka hooyadeeday ku gubtay gruubkaaga intaan xusuusto wixii aad heli karto ciyaal soomaaliyeed macallimiin u ahaadeen intaad aruuriseen aad iidaa la geyseen aad ku soo cararteen waa ku soo leedahay hadday macno leedahay xukunka waad hesheen 4 sanaad waxaad ugeed samaysay waa laga maarmaan maadaama ayagoo yidhaaheen hawiyaan nahay ayaga laftirka hore in la xusuusiyo horta yay ayagu isu yihiin maxay isla yihiin yay ahaayeen kuwa adiga inta lacagta kaa qaatay noomor abgaal ku dhihi jiray yay ahaayeen aniga dadkan yaaqay waa kuwii lacagtaadii qaatay abgaal dambe la dooramaana kuri kursiga asaas ku weysi kuwii aad haddana abaabushaad waxaad leedahay ayaga ay dooranayo waa sidaasoo waa haddaan nahay waxbaa hadlaysa aan ku xusuusiyo ma ku dooranayaan dagaalka aad sheegaysaan oo leedan xamaraa la qabsanayaa kadib madaxtooyadahan la gelaa waa lagu daadanayaa waa la fadhiisanayaa madaxtooyada haddii qabiil lagu qabsanayo xuseen ciidiidaa imaanaya soo ma joogo xuseen ciidiid haddiiba madaxtooye hadda in loo noqdo qabiil tago ay tahay waa aagga xuseen ciidiid sugiyaana jooga maanta haddaan dowladnimo la isku bedelayn oon dowladnimo systemkaad xogka lagu kala qaadanayn oodnaan doorasho ogolayn haddee magaaladan aag bay noo kale ahayd iga raalle ah waa gebagabaysana meelaha kalena aag kaley noqonayaan nin saaxiib nahayba hadda sitmaankii hore dhib gaaray
oo taliyihii booliiska noo ahaa markuu carara xaggee aaday boondheera maadan ogow shiir kale waa marka meelaha uu si kala cararaysan qolay u tahay shiir kale waa la kala wax hadda saas laa qadar allaahu ma dhacayso laakiin xataa aan ku xusuusiyo sidaad u fikiri haddii loo shaqeeyo xataa wallahi inayna noqonayn madaxtooyada raar waa imaanaya muxuu ahayd saaxiibkii cabdullaahi maxamed nuur amaan dhawid waxaan arkaya isagoo dhahay waa la dagaalamaya cabdullaahiyow koob qaraan $4 kaa siistin ma bishii hore miyaa ma aqaan hotelkaaga wallahi koob qaraan inuusan $4 gaarin cabdullaahi waa da'yar tahaye in la dagaalamayo koob qaraan $4 la gado la isku keeni maa waxa taas la sii jira hanti badan baad gashatay maasha allah laakiin adigu unu mid qaado inaad hoobiyahaaga garabka saarato iyo inaad koob qaraan 4 gadato isku meelay sida mid ku roon qaado hoobiyaha soo haray horta hoobiyaha haddii laga alli waayo u daran laftirkiisa kuwa loogu hanjaba waa kuwee qof baa un kaalintay geli jirtay iyo meeleeri kaaga dhawaanaysaa waaba haddii noqoto allah qadar allaahu waxaan rabaa marka yaana hadda loo noqonin oo idinkii laftirkiinni xataa haddaan la hurayn waxaan uga mahad celinaa intaan ka warqabo ambaan ka maqlay aniga madaxweyne shariif maasha allah inuu diiday baan maqlay magaalada in dagaal ka dhaco waa haddii sidaas tahay waa uga mahad celinaynaa waxaana keenaya intay kala dagaal aqoonsan yihiin xusni mubaaraga carabi berigii intifaadada 2000 ayuu wuxuu yidhi falastiin baa la weeraraya waa inaan baxno abrarada hal taangeeda hal way ka aamusay maxaad u aamustay baa la yidhi dagaal niman aqaan iyo nin lagu qasbaa galo yidhi horta waxaa ordayadu jeetuna dagaalaa la gelaa dhahaya waa kuwii 5 kilomitir xagga ka xiran inta ku orday ina khayray ina cabdishakuur iyo mahad salaad iyo ayagoo haweenku gugan baa haddana daqiiqad kadib aqoon xumaa keenaysa marka horeba adigoo dagaal u socdo inaad waddo xiran oo 5 kilomitir xiran ciidana ka horeeya ku ordo qad istiraatiijiyad dagaal lagu hanjaba horta waa taas macnaheedu sameynaysa ma la adeerayaalo marka dagaalna ma taqaaniin nabadda aad haysataan ood carruurtiinni bannaanka geysataan laakiin dimuqraadiyad aad ka gaartiin waxaad rabtiin inaad sheegtiin ha dhumina waa dheeriyay hadalka ninkaan aad ugu dheggan laakiin laga maarmaanay ahayd anoo ayaga ugu roonaayanahay runtii inaan xusuusiyo waxa ka dhalanaya waxay ka shaqaynayaan waxa ka dhalanaya runtii waa intaas ciidamada kuu soo haray ciidamada mar walba war-saxaafadeedka nimankaas koodaha waxaan ka naxay oo ku jiray inuu ku qoraa iyo ninka akhrinaya uu jeclaa kale ma aqaan waxaa ku jirtay in taliyaal ciidan loo hanjabay oo la soo magac qaaday nin ku-xigeenka milatariga ah ma aqaan hadda magaciisa ma xusuusto iyo fahad yaasiin oo taliya nisa ah iyo taliya xijaar war mahadow kuwaas maaha kuwa ku heystaa mahadow farxaanaa ku heysta iyo odawaa iyo haddaa wax ka sheegi karta amaad u hanjabi karta kuwa hubka haya waa kuwaas ood ka hoyalaada waxba waxaan jirin naftaada ha u sheegin hana ignore garaynin oo kuwa kula dhashee taliyaashaana ha ka dhigin kuwaan tala lahayn naftaadana been ha u sheegin kuwa ku heystaa kuwa maaha soomaalinimadana ha ku cayaarin oo macnaha ha ka dhigin intaad ka soo tagto warmurteedkii waxaa ku qoraa oo nimanka hawiye sheegana akhrinayaan inay eedeynayaan labada isteeda hawiye leeyahay oo qoorqoor iyo cali guudlaawo ay ka dhigeen waxaan jirin laakiin puntland iyo jubbaland ay mahadsan yihiin wallaahi wuu yidhi shariif maogta uma wallaahi uma wallaahi inaadan puntlandna kursi ka helayn jubbaland aadan kursi ka helayn kursigaagu wuxuu jiraa amba wuxuu jiriyaa galmudug ama hirshabelle loo jiriyaa haddaad ilowda anaa kuu sheegaya weligaas jeclaho haddaa rabto qandaraasiska idinka dhexeeyo waa shaqo idinka dhexey karta xataa ajaanibaad la shaqey karta laakiin inaad anta ignore garayso kuwa aad wax la leedahay kuwa aan adigaba wax kaala dhaxaynin ama si kale xataa kuu yaqaan maanta haddana isu kin keentay aad ayaga ammaan tahay waa daciiftinimada marka hadalku waa ku dheeraaday waana soo maro intaa inaan ka badiyo mar raba aad u mahadsantiin